السلام عليكم. معلمات فرنسيسة ayaa arday muslim ah ku qasabtay inuu sawiro Nabi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa aatee maxayse kala kulantay oo kooyay maclimadan aniga ayaa idin sheegayo balse inteenan u gudagelin muuqaalkeena fadlan muuqaalka like saar si aan u ogaano inta muslimiin ah daawatay muuqaalkan hana hilmaamin inaad subscribe saaratid channelka Dacwo Tube kuna soo dhawaada muuqaalkeena markii uu ku dhawaaqay madaxweynaha Faransiiska waan sawiraynaa sawir lagu xumeynayo Nabi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa aatee ayaa maclimad Faransiisa ka dalbatay ardayda inay sawiraan sawir Nabi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa aatee lagu xumeynayo ardaydu waxay soo galeen fasalka markii ay fadhiisteen ardayda maclimadii ayaa ku tiri ardayda maanta xiisadeynu waa ay ka duwan tahay xiisadaheeni hore oo maanta waxaan idinka doonayaa inaad sawirtaan sawirka Nabi Maxamed calayhi salaam hadda waxaan idin qaybinayaa warqadahan cad waxaan idinka doonayaa inaad sawirtaan Nabi Maxamed calayhi salaam laakiin fasalka waxa ku dhex jiray arday muslim ah ardaygii muslimka ayaa qalinka kor u taagay si uu maclimadda su'aal u weydiiyo laakiin maclimadii ayaa ku tiri maya hadda su'aal ma doonayo ee waxaan ka doonayaa inaad warqadda ku sawirtid Nabi Maxamed calayhi salaam ardaygii muslimka ayaa gacantiisa dajiyay isla waqtigaas ardayda kale waxay bilaabeen inay sawiraan sawirka Nabi Maxamed calayhi salaam laakiin ardaygii muslimka ahaa ma uusan sameeynin waxa ay maclimaddu ka doonaysay halka ardayda kale ay ahaayeen kuwa sawiraya sawirka Nabi Maxamed calayhi salaam maclimaddu waxay dhex mareysay ardayda dhexdooda waxayna ahayd mid fiirinaysa waxa ay sawirayaan ardayda ardaygii muslimka ah waxa indhihiisa ku soo istaagtay ilin waxa uuna ku sigtay inuu fasalka dhexdiisa ku ooyo warqadii ayuu bilaabay inuu ku dul fikiro ilaa uu ka helay fikrad wanaagsan waxa uuna bilaabay inuu sameeyo fikradii ku soo dhacday halka maclimadii ay wali kormeereysay ardayda markii uu dhameeyay waxa uu dhiibay maclimadii sidoo kale ardayda kale iyaguna waa ay dhiibeen maclimadii ayaa qaadatay warqadihii si ay u soo saxdo ardaydiina waxay aadeen guryahooda wiilkii muslimka markii uu sii socday guriga waxa uu oranayay rasuulkii ilaahayow xabiibkii aan jeclaa maanta maclimadii waxay noo dirtay inaan sawirno sawir lagu xumeynayo yaa rasuulallah sidee baan kuu sawiraa anigoon arkin wejigaaga quruxda iyo nuurka badnaa waxaan isku laabay indhahayga waxaan arkay shay la yaab leh muxuuse arkay waxaan arkay hooyaday oo mar waliba akhrin jirtay siiradaadii wanaagsaneed sidoo kale waxaan arkay aabahay oo tukan jiray saqda dhexe sidoo kale waxaan arkay walaasheeda iga weyn ee muslimadda ahayd ee mar waliba dhoole cadeyn jirtay aadna kuu jecleed rasuulka Allah sidee baan kuu sawirayaa rasuulka Allah anigoon arkin wejigaaga quruxda iyo nuurka badnaa laakiin anigu indhaha ayaan isku qabtay waxaana igu soo dhacday fikrad wanaagsan waxaana dareemayay neecaw aad u qabow badan sidee baan kuu sawirayaa rasuulka Allah ardaygii muslimka waxa uu ku qoray warqadii fariin naxdin leh oo ku socota maclimadii waxaana ku qornaa warqadda sidatan maclimadeydii anigu ma sawirin Nabi Maxamed calayhi salaam laakiin akhriso fariinteeda ilaa aad ka ogaatid waxa uu yahay Nabi Maxamed calayhi salaam maclimadeydii ma aadan ii ogolaalin inaan ku weydiiyo inta aadan noo dirin sawirka Nabi Maxamed calayhi salaam waa kuma Nabi Maxamed calayhi salaam gacanta ayaan taagtay si aan ku weydiiyo laakiin waad iga diiday maclimadeydii Nabi Maxamed calayhi salaam waan jecelnahay anagoonan arkin qof u jecel ma jiro sidii qof uusan arkin sida aan u jecelnahay Nabi Maxamed calayhi salaam Nabi Maxamed waa nabigii uu Alle u soo diray ummadan si uu cadaabta ugu xoreeyo waxaan jecelahay inaan mar waliba qoro magaca Nabi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa aatee markii ay akhrisay maclimadii warqadii uu qoray ardaygii muslimka ahaa waxa ka soo daadatay ilin waxayna go'aansatay inay soo baarto taariikhda Nabi Maxamed calayhi salaam waatan maclimadii oo ka sheegaysa warbaahinta waxa ka soo baxay baaritaankeeda waxayna tiri waxaan ogaaday inuu Nabi Maxamed calayhi salaam uu yahay qofka ugu khayrka badan dunida aanu ku noolnahay
sidoo kale inuu yahay rasuul uu soo diray Allah subxaanahu wa ta'aala sidoo kale waxaan ogaaday in diinta islaamka ay tahay diin dhammaystiran waxaan aaday masaajid ku yaala Faransa si aan u galo diintan dhammaystiran ee islaamka waxaana ii sharaxay sheekh Faransiis ah kadib halkaas ayaan ku muslimay ardaygii muslimka ah aan rabay inaan diintiisa dhibaateeyo ayaa sabab igu noqday inaan soo galo diintan islaamka markii uu yiri madaxweynaha Faransiiska sawirka Nabi Maxamed kama suulayno ee uu islaamka ku dhibaateynayay ayaa aniguna waxa igu soo dhacday inaan dhibaateeyo ardaygii muslimka ahaa ee aan macallimada u ahaa isaga ayaan ka bilaabay inaan dhibaateeyo intii dad kale aanan gaarinna isaga ayaa sabab igu noqday inaan qaato diintan islaamka halkaas ay noogu soo dhamaatay qisadeeni quruxda badneed fadlan muuqaalka like saar siina share garay hadii aad awoodo وأنيقو أهزكي محمود ودين له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الأحزان الحمد لله الحمد لله تزيد فرح الحمد لله تذيب ترح الحمد لله تزيد فرح الحمد لله تذيب ترح الحمد لله الحمد لله على الأفراح الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الأحزان الحمد لله الحمد لله تزيد فرح تزيد أتراح تزيد فرح الحمد لله تزيد أتراح الحمد لله على الإسلام أكبر نعمة من الهادي الحمد لله أمن سلام تنعم فيها رب بلادي الحمد لله تزيل الهم تشفى المجروح وتمنع الغم الحمد لله تزيل الهم تشفى المجروح وتمنع الغم الحمد لله بترضي الله يرضيك الله بها تنعم الحمد لله بترضي الله يرضيك الله بها تنعم الحمد لله الحمد لله على الأفراح الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الأحزان الحمد لله الحمد لله تزيد فرح تزيد أتراح الحمد لله تزيد فرح الحمد لله تزيد أتراح الحمد لله مع الأذكار نرددها مساء وصباح الحمد لله وفي الأسحار مع استغفار بكل دعاء الحمد لله دوم وأبد الحمد لله بقبل وبعد الحمد لله دوم وأبد الحمد لله بقبل وبعد الحمد لله بها ترتاح رزقك الله ببيت الحمد الحمد لله بها ترتاح رزقك الله ببيت الحمد الحمد لله الحمد لله على الأفراح الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الأحزان الحمد لله الحمد لله تزيد فرح الحمد لله تزيد أتراح الحمد لله تزيد فرح الحمد لله تزيد أتراح الحمد لله الحمد لله على الأفراح الحمد لله الحمد لله أتراح تزيد فرح الحمد لله تزيد أتراح الحمد لله على الإسلام أكبر نعمة من الهادي الحمد لله أمن سلام تنعم فيها رب بلادي الحمد لله تزيل الهم تشفى المجروح وتمنع الغم الحمد لله تزيل الهم تشفى المجروح وتمنع الغم الحمد لله بترضي الله يرضيك الله بها تنعم الحمد لله بترضي الله يرضيك الله بها تنعم الحمد لله الحمد لله
على الأفراح الحمد لله، الحمد لله الحمد لله، على الأحزان الحمد لله، الحمد لله تزيد أفراح.